maanta waa maalinta saxaafadda adduunka waxaan leeyahay dhammaan saxafiyiinta dunida congratulation hambalyo maalinta xorriyatul qowlka hadalka runtii saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay sidaas la mid ah hambalyo gaar ahaan kuwa Jubbaland iyaguna waxaan leeyahay hambalyo sida aad ogtihiin maanta waa 3 May maalinta saxaafadda adduunka dabcan maalin gaar ah inagu inoo tahay sanadkan iyo sanadihii la soo dhaafayba maadaama aysan jirin wax dhibaato ah oo saxafiyiinta gobolkan ku nool loo geysay aanay jirin taasna waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay ka sokow madaxda dawlad goboleedka Jubbaland oo inta badan iska xil saaray ilaalinta xuquuqda saxafiyiinta ee gobolkan ka howlgala marka waxaan leeyahay dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed hambalyo sanadkan sanadkiisa kale baraari iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan u rajeynayaa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubbaland haddana saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan saxafiyiinta Jubbaland oo meeshan munaasabadan ay soo qabaqaaminay haddana gabdhaha saxafiyiinta Jubbaland gaar ahaan degmada Kismaayo waxaan leenahay dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed meel walba joogaan hambalyo waxaan rajeynayaa sanadkan sanadkiisa kale nabad bashbash barwaaqo inuu eebana u gaarsiiyo saxafiyiinta Soomaaliyeed waa kuwa mar walba u taagan inay gudbiyaan horumarka dalka haday ahaan lahayd amnigii sidoo kale arrimihii bini'aadanimada anagoo gabdhihii ah waxaan ku shaqeynaa xaalad adag markii loo fiiriyo dalka xilligu yahay balse Jubbaland joogno waa amni laakiin waa in mar walba muhiimada gaarka ah gabdhaha la ogaado sida ku shaqeeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh bahaweynta saxaafadda Soomaaliyeed ee guud ahaan caalamka waxaan ugu hambaleynayaa 3 May oo maanta ku aastaysan waa maalinta saxaafadda adduunka saxaafaddu waa mid laba af leh dhan walba loo adeegsadana way saameyn kartaa marka haddaan nahay annaga saxafiyiinta Jubbaland inta badan waxaan ka shaqeynaa horumarka iyo sidii wanaagga Jubbaland aan u soo bandhigi lahayn insha Allah saxafiyiinta kale ee Soomaaliyeed ayagana waxaan leeyahay sanadkiisa caafimaadku gaara aan ka wada shaqeyno dalkeena horumarkiisa waa maasantiin bismillaah waxaan rabaa halkan inaan hambalyo farxad la wadaago dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed oo gaar ahaan saxafiyiinta reer Jubbaland oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii ama 3 May maalinta xorriyatul qowlka saxafiyiinta Soomaaliyeed u gaartay dhammaan saxafiyiinta waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xafladani waxaan ugu dabaaldegaynaa 3 May oo ah maalintii loo asteeyay maalinta saxaafadda adduunka waxaana soo qabanqaabiyay anagoo ah gabdhaha saxafiyiinta Jubbaland waana ku faraxsanahay inaan ka qayb galo xafladda saxafiyiinta loogu dabaaldegayo saxafiyiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay hambalyo waa maalin nagu weyn haddii aan nahay saxafiyiinta